maxamed nuur sheekh aadan madoobe shir ay maanta isugu yimaadeen gudoomiyaasha gudiyada kala duwan ee baarlamaanka oo uu isagu shir gudoominayay shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay ee isku arkaan madaxda gudiyada baarlamaanka iyo gudoonka sare ee baarlamaankuba muddo ku dhow 2 bilood ayaa ajandayaasha loogaga hadlayay waxaa ka mid ahaa kala warqaadasho ay xildhibaanadu kala warqaadanayeen muddadii fasaxa iyo wada tashi ku saabsanaa goorta uu rasmi ahaan u furmayo kala fadhiga baarlamaanka warbixinta waa la kala qaatay wixii dalka dhibaato ku jiro iyo guud ahaan yani arrimahaas kadibna waxaa la galay qodobkii furitaankii kala fadhiga golaha baarlamaanka marka baarlamaanka wuxuu ku jiray fasax 2 arrimood isugu jiro markii koowaad horta baarlamaanka wuxuu leeyahay sanadkii 2 kala fadhi labadaas kala fadhi oo ah 4 bilood markuu socdo 2 bilood fasax dastuuri leeyahay baarlamaanka haddana labadaas bilood markuu dhameysto haddana 4 bilood oo maaragtay kala fadhiga soconayo uu leeyahay haddana 2 bilood oo kale marka ayada oo kala fadhigii koowaad furan yahay ayaa waxaa 4 biloodna laga soo gudbiyay dhamaatay ayaa soonkii soo galay marka waxaa isqabtay soonkii iyo baarlamaanka xaq u yeeshay inuu maaragtay fasax galo sidaas daraadeed baarlamaanka fasax u galay soonkii waa la dhameystay alxamdulillah sidoo kale gudoomiye sheekh aadan madoobe waxa uu ka warramay hadal baryahan dambe ay isla dhaxmarayeen qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo ku aadanaa in dawladda kumeel gaarka ah ay wali daba joogto heshiis dhinaca badda ahaa oo ay wada galeen dawladaha Kenya iyo Soomaaliya kaasoo laakiin muran fara badan kadib uu baarlamaanka Soomaaliya ku diiday cod aqlabiyad buuxa leh arrintaas waa jirtay baarlamaanka inuu hore uga hadlay xukuumadda markii arrimahaas soo gashay baarlamaanka marka waliba ayad oo xukuumad xageeda ka soo gaarin xildhibaanada mooshin ka keeneen markii dambana qoraalkii asigoo sidiisa ah ra'iisul wasaaraha soo saxiixay baarlamaanka loo keenay baarlamaanka intaas waa ka dooday runtii xukuumadda markaas ujeedooyinkeeda ma cadeynin iyo waxyaalaha maaragtay sida laga rabay baarlamaanka arrintaas dood dheer ka galay waxaa soo baxday shaki badan oo runtii u cuntumi waayay baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa maaragtay meeshii ka muuqday fafaahin xukuumadda kama bixinin marka baarlamaanka wuxuu go'aamay arrintaas gebigeed in la laalo waqtigan hadda la joogo marka go'aankii baarlamaankana wasiirna ma burin karo xukuumadda guud ahaan ma burin karto kaliya waxaa soo celin kara madaxweynaha dastuurka wuxuu qorayaa markii baarlamaanka loo gudbiyo 14 maalmood gudahood wuxuu xaq u leeyahay inuu ku soo celiyo asigoo sababaynayo xubnaha baarlamaanka kumeel gaarka ee Soomaaliya oo tan iyo dabayaaqadii bishii Agost ku maqnaa fasax ayaa waxaa la filayaa inay dib isugu soo noqdaan sida uu ka dhawaajiyay gudoonka sare ee baarlamaanku 25 bishan Oktoobar markaas oo uu si rasmi ah u furmi doono ka fadhiga caadiga ah ee golaha baarlamaanka kumeel gaarka ee Soomaaliya.